السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال waa saaxiibayaal muuqaalkan maanta waxaynu ku qaadan doonaa sidee ayaa presentation u diyaarsan kartaa haddii aad tahay arday. Marka presentation haddii lagu soo diro qaab noocaa ah u diyaarsan kartaa weliba qaab professional ah. Maanta waxaan ku tusi doonaa marka wadadii aad mar lahayd, wadada ugu fudud aad mar lahayd waad presentation ku diyaarsan lahayd. Warin waxaad soo galaysaa marka Chrome ama waxa walbo browser kugu jiro mid kaarid soo furo kadibna waxaa isticmaalaa qaybta searching-ka. Marka qaybta searching-ka imaadid waxaad ku qoraysaa bad AI, yani waxaan adeegsan doonaa artificial intelligence cusub ee ay soo saartay shirkadda Google oo ay ugu magac dartay bad AI oo la shaqeeyo yani u shaqeeya sida ChatGPT oo kale la barbar dhigma dabcan haddii uusan ka awood badnayn yani meelo qaar. Marka bad AI-ga ayaan adeegsan doonaa anagoo markaa u samayn doona yani qaabku wax noogu soo diyaarinay tijaabineynaa kadibna cashirkeena ayaan u dirsaneynaa. Ugu horreyn marka waxaan tijaabo yar ku sameyneynaa qaabku wax noogu soo diyaarinayo. Haddii aan su'aal weydiiyo oo ah how to learn Python basic aan leedahay. Marka su-aasheena qaabka noogu soo jawaab aan arki doonaa dabcan waa isla eegayna. Bad AI-ga waxa uu uga duwan yahay shirkadda bad AI-ga yani waxa uu uga duwan yahay ChatGPT-ga ayaa ah yani limitation inuusan lahayn. Wadamada qaar kama xirno, kulli wadamada meel alla meesha joogtay waad ka isticmaali kartaa, qaab free ayaad ku isticmaalaysaa. Sidoo kale marka uma baahno inaad lacag ku bixisid, waana free application-kan. Shirkadda Google ayaa iska leh, wax allaale waxaa rabtaa ay weydiinaysaa. Waxa ay rabtaa inaad tartan kula gasho ChatGPT-ga oo lacag ay haddana wadamo qaar ka xiran sida Soomaaliya oo kale aan laga isticmaali karin. Mar walba marka tartanka shirkadaha ay sameeyaan waa laga dhex faa'iidaystaa oo yani wixii danta laga raadsadaa. Hadda anaga danaan noogu jirto inaan isticmaalo. Haddii aan markaa ChatGPT yani lacag waayo wax uma weydiin karay ama qarashkaas uma ay dhihi jirtay. Dabcan hadda excuse-kaas ma haystid oo meeshaan bad AI-ga ayaa ka saaray. Su-aasheeni ayuu kasoo jawaabay oo ah marka TPC oo na siin doono haddii aan rabno inaan basic Python barano. 4 TPC ayaan maraynaa marka inaan ku doorano luqadda yani choose a learning method that works for you, yani wadooyin aad yani ku shaqayn kartid ama wax ku baran kartid inaad dooratid kadibna start with the basic aad ku bilaabatid practice aad samaysid. Dabcan waa inaad practice garaysaa haddii aad rabtid inaad programming baratid. Sidoo kale yani waa inaanan ka cajisin ama yani wax weydiinin. Marka wax weydiinta ama su'aalaha aadan ka cajisin oo mar walba wax raadisaa. Marka dabcan su-aasheeni yani qaab wuxuu ugu soo jawaabay professional ah. Mar walba markaan sidaan yani inoo su-aasheeni ay noqoto laakiin tijaabo ahaan ayaa naga ahayd. Hadda sidoo kale waxaan gelin doonaa casharada anagoo kala soo bixi doona marka cashir dabcan sida tusaale ahaan presentation nala soo diray marka lessons aan leenahay in Python. Isaga marka waa uu ka dhaqso badan yahay yani linki AI kuwa la dhaho iyo ChatGPT. Marka labadaas waa uu ka dhaqso badan yahay yani qaab qoraalkiisa wuxuu ku soo daqiiqada yani second ayuu ku shaqeynaysaa. Here are some lessons in Python ayuu leeyahay. Kow variable, midkaan labaad data type, midkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa control operator, control flow statement, sections, module, classes. Dabcan 7 cashir ilaa iyo 7 cashir ayuu kusoo diyaariyey. 7 cashir mid ayaan kala bixi doonaa anagoo ka dhigi doono qaab yani in nala soo diray presentation kasoo diyaariyay macalinka. Marka waxaan qaadanaynaa data type. Data type haddaynu qaadano waan koobiyeysanayna dabcan kadibna cashirkeena ayaan guda galaynaa. Haddii aad rabtid inaad Python ka baratid dabcan waad ka baran kartaa sida basic oo kale. Variable wuxuu yahay code yani ku fahansiinayo tusaale kale haddana laba tusaale marka uu ku siiyo kadib sidaas uu gudbiyaa. Haddana data type waxa ay tahay meeshan ku faahfaahinaa code yar ku fahansiinayo qaabka u shaqeeyo data type-ka. Marka waad ujeedaa qaab yani professional ah yani aan waqti badan kaga bixin. Hadda waxaan leenahay marka data type iga diyaari presentation ku saabsan ilaa iyo 25 slide meelahaas ii gaarsiiyay dabcan. Hadda waxaan leenahay luqadda Soomaaliya kuma shaqeeyo halka uu luqadda Soomaaliya kuma shaqeeyo dabcan halka uu ChatGPT ku shaqeynayo luqadaha Soomaaliga. Marka luqadaha caalamka oo dhan ayuu ChatGPT ku shaqeeyaa badankooda laakiin kan waxa uu ku shaqeeyaa luqadda Soomaaliya kama shaqeeyo laakiin luqado kale uu ku shaqeeyo waa jirta sida Englishka muumaleynaya luqadda Faransiiska meelahaas oo ku shaqeeyaa aniga kuma tijaabinin laakiin ogeysiiska aan ka arkay inuu luqado badan ku shaqeeyo ayaan ogaay. Marka waxaan leenahay 5 presentation about Python data type 25 slides. Marka su-aasha qaabka u soo qoray aan arki doonaa jawaabteeda iyo qaabka uu fahmo. Marka waxa uu leeyahay waan ku samayn karaa presentation ku saabsan data type oo yani
25 slides ah. Slide-ka koowaad ayaynu soo qaatay waxaana ka dhigay Python data type. Slide-ka subtitle-kiisana waxaa ku dhigay presentation about the different data types in Python, yani farqiga u dhexeeya data typeska marka la joogo Python. Marka slide-ka labaad waxa uu dhahay what is data type, yani iyadoo isku faahfaahinaya halkan slide kan wuxuu ku noqon doonaa marka title-ka slide-ka labaad. Dabcan kana wuxuu ku noqon doonaa baadigiisa waxa aad sharaxaysay. Marka kadibna slide-ka saddexaad ayuu gudbay Python has variety of data type including string, integer, float, boolean, list, table, dictionary. Waxaas ayuu kusoo qornaa dabcan. Sidoo kale slide-ka afraad string is a sequence of character. String kan yani wuxuu ku noqon doonaa title-ka waa maxay string oo kale ay ka dhigan tahay sequence of character. String single or double quotation. Marka sidaas ayaa u qiyaasan kartaa haddii aad rabto. Marka waxaan isla eegi doonaa ilaa iyo meeqa slide ay noo soo diyaariyay. Dabcan slide-yada ma dhammaystiran yihiin intaan u dirnay, haddii ay dhammaystiran yihiin aynu isla aragno. Slide-ka ugu dambeeya waa slide 25. dabcan ilaa 25 ayaan dirnay. Thank you for your attention ayuu kusoo qoray summary slide 24. kan kalena waxaa waaye cashirkii meesha uu kasii socday. Kan slide 24 ayuu kusoo gabagabay oo summary ayuu ku sameeyey. dabcan wuxuu dhahay in this presentation we learn about the different data types in Python. yani presentationka waxaan ku baranay qeybaha kala duwan ee data type markii laga joogo Python. We also learn how to work with data types in variety of ways. yani qeybaha kala duwan ee u shaqeyso data type ayaan baranay. cashirkeena ugu dambeeyna wuxuu kusoo gabagabeeyey thank you for your attention. dabcan waa qaab diyaarsan. haddii aad rabto marka qaabkan yani marka aad sharaxaysid kuma caajisaysid casharaba yani waxyaabo badan oo aad soo qoran jirtay meesha ay ka baxayaan. kaliya wixii fahankaaga ayay ku xiran. haddii aad fahansan tahay wixii aad soo jeedinaysid waa ku raaxaysanaysaa qoraalkan oo markaa dadka u sharaxaysid oo kale. marka kadib haddii aad u baahan tahay inaad soo degsatid ama aad rabtid inaad copy dhahid, yani sidaan ma dhehaysid copy highlight ma sameynaysid. dabcan meeshaan ayay kugu soo fududeeyeen. meeshaan copy ayaad ka leedahay. meeshaas ayaa copy ka dhigi kartaa. haddii aad calaamadaas ku dhiftay saddexaad waa geeska kadibna copy aad dhahayd, dabcan sidaas ayuu ku copy-ismaa. cabaar yar ayaa sugaysaa copy-ga kadib waad ujeedaa copy to clipboard ayuu dhahay. clipboard-kii haddii aan firiyay Ctrl V, Windows Ctrl V, waad ujeedaan shows here is a presentation about Python data type with 25 slides. waa yani title-ka ugu koreeyay ayuu isoo qaadanaa cashirka meesha ka bilaabnay. marka sidoo kale haddii aan rabo inaad Google Docs ama Gmail ama export to Colab kaas waxaan yani waa meel yani Colab meel oo gooni waxa waaye new Colab notebook. waa sida notebook camal Colab mafahmin wuxuu yahay ma isticmaali ilaan export iyo Gmail oo kale oo isticmaali kartaa. Docs haddii aad dahdid yani Google Docs aad gelisid waa uu kugu safgareynaya dabcan isagana. sidoo kale halkan waxa uu ku leeyahay dark mode oo haddii aad markaa haween ay joogtid waad u isticmaali kartaa sida indhahaaga yani uu kaaga hortago. creating document ayuu leeyahay Google Docs shaqadii aan ugu dirna ayuu noogu maqan. hadda waa uu noo soo sameeyey open docs aynu leeyahay. haddii aynu soo fiirino marka dabcan presentation-keeni ayuu noo soo diyaariyey. marka xogta haddii aad ka baxdid way kaa lumaysaa. mar walba waa inaad copy dhahdaa ama aad Google Docs ama Gmail-kaaga gashataa. marka Google Docs-ka aan gashanay casharada sidaan ay noogu soo baxeen dabcan saa ujeedaa. slide-ka koowaad aan soo copy-sanaya mar walba iga dhawaa. marka Google Docs-kayga hadda soo galo waan ka helayaa mar walba Gmail-kayga. dabcan wax kama maqno. haddii aad markaa rabtid inaad document-ka dhigtid qaybtaas ayaa taabanaysaa. haddaba haddaad ka heshay muuqaalkan halkaa codsan inaad nagu soo biirtid mar walba waxaad ka faa'iidaysaa wax yani haddii aad markaa arday tahay haddii markaa dhanka teknolojiyada badan aan ka hadalnaa. haddii aad markaa nagu cusubtahay waa nagu soo biiri kartaa oo waan ka faa'iidi kartaa.